suhaybo arrimahaas aaday u fara badan yihiin oo hadda waxaan kusoo koobi kara daqiiqada ma aha, laakiin waxa ugu muhiimsan waxay tahay qoyska ka ugu yar oo 2 jirka ilaa iyo 60 jirka waxay isku wada fahmi karaan oo maaweelo u noqon kara iyo farxad inaan sameeyo oo dadka Soomaaliga soo celin kara xataa caruuraha qurbaha ku dhashay ay fahmi karaan oo ku qosbi karaan ay ku siin karaan macnaha tixgelin gaar ah si ay Soomaaliga ugu soo laabtaan dadkoo dhan. bal waxa ii sheegtaa in sheekooyinkan marka aad samaynayso ma waxa aad ka fikirtaa inta aadan iska duubin ka hor? waxaan markaa samaynaya waxa weeye af Soomaaliga unba aniga isticmaala aan ku hadlo, laakiin waxaan isku dayaa in aan maaragtay waxaan arkay aan sameeyo qiso aan ogaa markay dhacaysay ama aan maqlay oo la iga sheegay. dabcan sheekooyinka gaagaaban ee aad samaysay waa ay tiro badan yihiin, bal mid kamid ah haddii aan soo qabto waxaad u bixisay rufiyaannimada. aniga horta naftad ahaantayda ayaan ka soo qaaday markuu qof isoo waco oo wax ii sheego waa isbedelaa qalbigayga markii uu qofkaas wax ii sheegay inuu asxaan ii sameeyo uma arko. marka waxaan ka sameeyey qofka hadalka soo sheegaya inuu yahay dhibaatada qofka wada oo labada qof u kala dabqaadaya. markaas ayaan waxaan sameeyey sidii lagu xakameyn lahaa qofkaas oo ah sida uu qofkaas u dhibay in asagana wax kale loo sheego loogu jawaabo si uu u joojiyo inuu wax soo sheego. dadka hana la wada dhageystaan sheekadaas. kiba isoo waxaan ka bilaabay halo ma ii waran maxaa haysaa waa fiicanahay waxaan ku hayaa naagtiba maanta isoo wacda yaa daadii ku caayis ama tii kala isoo wacday daadii ku caayis daadii waxay tiri ii sheeg waxay tiri ilaaha gurigeeda dib dambe ha ii geyn noloshaydii daaqaan jeerle ma arag aniga guriga niicda iigu horreysay tiri waxaan caafimaadayn waa la kala qaadaa uma socday tiri waxaa la yidhi maraday magaalada u qaadato surminti lafta iyo raydkaba cunnaa kaga dhegan sida daag baan ku yidhi baastii bariis noocaa u baahataad ka dalbanaysaa dusheeda ilaah baan ku dhaartay waxaa la yidhi qof bini aadan oo nolosheedii ag maray oo aan qubaysan waa la waa. badanaa sheekooyinkaaga magacyada aad u isticmaasho waa kuwo qosol badan, waxaa ka mid ah suulmindi, niic, qaloocow, shaafto. maxaad ku dooratay magacyadaasi? magacyadaas waxaa u doortay riwaayadaas markaas aan samaynayo si uusan qof intuu daawado aysan magaciisii uusan macnaha qofkaas ama inkastoo Soomaalida bariyahan dambe u badata xagga eeda aan la ii dhihin magacaygaad ku soo dartay. marka anoo dadkii oo dhan qalbigooda nadiif noqda rabo ayaan waxaan isticmaalaa magacyo aniga aan samaysto oo ii gaara. adiga laftirkaada waxaa iskula baxday niic. hadda magacayga qaldan niic muluhmalaha dheh. ma culays baan kugu ahay? bal sheekadaas iiga waran. waa sheeko idin dhex maraysa adiga iyo odaygaaga sida aad ku matalayso. sheekadaas waxay ku saabsan tahay qurbaha sida waagii hore wadanka markii la joogay gabdhaha caruurta haysta daris bay lahaayeen, caruurta bacaadkay ku dheeli jireen kadhimi wadankan sidii maaha guri baa lagu wada xiran yahay. marka gabadhii waxaa dhici karta inay ninkii wacdo 20 jeer halkii saac iyadoo is ogeyn oo wax ay hal telefoon ugu diri karto hal wicitaan ay samayso ay ugu dirto 10 jeer ay la kala wacdo ayadoo ka raadinaysa halkaas sheeko ama hadal la sheekaysato qofkina uu mashquul yahay oo markaa laga yaabo shaqo. haddii aan runta kuu sheego horta sheekadaas 10 jeer aan ku cishta aad iyo aad ayaan u qoslay, balse waxaan doonayaa qosolka kaliya inaan aniga adiga isku koobno maahay dadka kale inay la dhageystaan. halo waryaa gabadha yartaa aanigi waa ka dhamaadeen hore u soo qaad markaa imaanaysa. halo waryaa wiilka yaroo saan caddaa dheebarkii baa ka dhamaaday u soo qaad. xaggee u degdegaysaa sidaa u degdegaysaan kastamar baa wadaa maxaa iga galay dee naanala hadash soo qaad cusbo soo qaad war waa igu dan iskuguma dayna naaga kalaad kula hadlaysin ee teeraya maanta jactarkaa kaa dhacay shukaansi shukaansiga ku jirta sug aamus yaa kaa gadaal hadlaya dad naag baa maqlaa wadan kula saaran tahay miya gaariga wallaahi inaysan ahayn naag caddaan oo kastamara umaba codekada caddaan Soomaali Maxamed aan diin ismarin anaa maqla waad aamusisay. waa cajiib. tan iyo markaad bilowday samaynta sheekooyinkan baraha bulshada aad ayaa looga jeclaystay oo dad badan ayaa ku daawado. maxaa kuugu yaab badnaa oo aad la kulantay Naciimo? waxaa iigu yaabka badnaa anoo magaalada maraayo markaan arkay gabar daawanaysa fiidiyoyadayda kadibna ay iga codsatay inaan la daawado gabadhan shactirada badan oo Soomaaliyeed ee aad ula dhacday. kadibna waan qoslay wax yaraan attention siiyo waana kasii dhaqaaqay. midda kale oo iigu yaabka badnayd waxay ahayd maalintii wiil Facebook fareenkayga kamid ah uu ku soo qoray meesha gabdhahan aad baan uga helaa aniga waa qoslay maxaa yeelay waxay yaab iila noqotay inaan keligay ahay asaguna uu haysto gabdho fara badan oo 3 iyo 4 ka badan. Naciimo bal waxaad ii matashaa sheekadan ku saabsan Valentine Day-ga ee aad iska duubtay oo waliba adiga oo gabadha kale ay ku leedahay reebaadiye ayaad baahayde maalinta jacaylka maxaad ka taqaanaa? naaheed sootaan baadiyaha ariga isku la raaci jirnay gormaa tiri Valentine hadda Valentine ka sheegaysto waa
sii dartaa meeshii ahayd oo adiga gabadha aad isku jawaabayseen mar horaan kuu bixiye hee cirkaa ii jira cabaar waxa weeye hadde waa qof maaragtay baadiyaha isagoo jooga model iska dhigi jiro dudumooyinka ku socon jira moogtahay haye waxaad ii sheegtaa bal bulshada siday ku arkaan siday kuu soo dhaweeyeen waxaan u malaynayaa arrintan muddada aan samaynayay 3 commenty ama 4 commenty oo negative ama wax aan macnaha aan dad ay farxarsanayn waxaan ka arkay 4 qof ama 3 qof inta kaleeto ummadda Soomaaliyeed waxay ii taageertay si kale iyo laaba sheekooyinka aad samaysay aad ayay u tira badan yihiin waxaa kamid ah Valentine Day waxaa kamid ah cudoon waxaa kamid ah surmindi iyo shaafta iyo kuwo kale aad u tira badan oo aan soo koobi karin markana waxaan rabaa marka inaan soo qabto sheekada ku saabsanayd Sheedar iyo Shakuur shuuta shaacir iyo Shakuur dheh waa tii shuuta markii laga aamusay ay tiri hadda marka qaarkood saasoo Shakuur iga aamusaa alla haddii la rabo Shakuur markuu qoslayo buu dhahaa Shakuur waxa weeye 3 sano soo socota inaan maqlo ma rabo adiga subayda hadda kaama warqabo laakiin aniga ma rabo inaan maqlo waa ogahay mar hore ayaad basheegtay oo waxaad tiri Shakuur haddii aan maqlo waaba ku dilqaaya halkee beegsanaysaa cirka ii jira cabaar ma halka ayaad kusoo gabagabaysay saasay noola eg tahay weliba cirka keligay ma aaday kulligeen cirkaa noo jira cabaar ma garat